السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن داوديال كسر لواذا قيبت اللباد برامج تحرقها وأنه طبعا اللي كسر قد بنا قيبتي سكواد ورئيس عن الله لأن دولية أحمد محمد حسن أحمد ليرة وكتر سنة دولياشي ديارته عركة عندما جمهورية الصومالية اللي يسكون رنتري أحمد ليرة وحاو كمدها دولياشي ديارتها عركة عندما ميلتريها ودي وحاروها أمسه وعام ku yahay inuu ahaa sarkaalkii diyaaradda la goostay 1988 ee magaalada Hargeysa intuu ka duulay markaas dalka Djibouti la galay kadib markii lagu amray in uu ka qayb qaato xasuuqii shacabka Soomaaliland ay ku hayeen ciidamadii militariga ahaa ee ka amar qaadanayay dawladda Siyaad Barre. Hadallo dhawaan aanu kula kulnay magaalada Hargeysa ayaa wareysigaasi aanu qaybtiisa koowaad idin soo gudbinay halkan aanu idinku soo gudbin doono qaybtiisa labaad aanu kula yeelanay waxaana idin soo diyaariyay ururka xoojinta qaranimada Soomaaliland iyo bahda Dawan Media oo iskaashanaya ee daawasho wanaagsan waatahay Axmed waynu sii wadana haween haddii imika Soomaaliland ay maxkamadaha caalamka kusoo ay arrintan wixii dhacay iyo qadiyadda lafteeda ay dacwado caalami yimaadaan adigu Axmed ahaan markhaatiga ma furi lahayd ama Soomaaliland markhaati ma furaysayo waxaad adigu goobjoog u ahayd ama waxaad arkaysay ama sidii wuxuu socday markaad eegto xaaladii iyo waaqicii halka ka jiray ma gelaysaa markhaatiga حق سيدي سبا قف عن حق الشيء وعليه الساكت عن الحق شيطان أخرس يعني قفك كأموسى حق وشيطان لقلبه أو مقلب مركا حق إلا الشيء هو واجب سيدي مركا وحين ماشا كدعاينا dad badan ka warqaba dadkaas badan oo ka warqaba qaar waa nool iyo qaar waa dhinteen marka sida uu sheegaba waxa aad iyo aad nasiib darro ah inaan ilaa hadda la haynin cid ka hadasha oo arintaas qirata dambiilayaashii anigoo arkaynay dad xataa kala duwan oo gaal iyo muslim ama mataqaan ama qoromo kala duwan ama ethnic kala duwan ah oo sida South Africa kale qiranayaan oo leeyahay halkaasaan wax ku dilay hal ay cafiyo kii kula dhashay maxay raadaan diinta isku eedeen oo dhibaatada u geysatana aadan dhigi karin war dhibkaas galay hal ay cafiyo waa aad iyo aad u nasiib darro ah tusaalahaan markaan ka hadlayno hadiiba dowladda Soomaaliyeed ay cadaalad horkeedu dadkeeda ahaa ama mas'uuliyiintii waxa geysanaysay hadii dowladdu ilaa hadda aanay 30 sano ka jawaabin ama 20 sano aanay ka jawaabin yani arrintan kiiska filaysaa in mar una ay cadaalad iman doonto dadkii gaboodfalada noocaas geystay intii dhintay dhimatay inta nool lagu xisaab shaki igama jiro oo waxa shaki leh waay cidda Soomaali iyo Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan inta Soomaaliya ethniga Soomaaliga ah wanaageeda jecel haddii maalintii xukunka qabtaan inay arrintaas inay imaanayso shakiga ma jiro maxaa yeelay waa wax loo baahan yahay waa wax xaq ah waa wax mujtamaci laftiisa ku dawoobi karo dawada ilaa maanta la leeyahay taasaa kowka ah haddii la heli lahaa sida waddamada kale dad qiranaya dembigii hadda shakiga ma jiro in maxaa dadka loo geystayna inay cafis ay isla markiiba fidi lahaayeen laakiin caqabada taaganaaba waxaa ah arrintaas hadda sheegay ilaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu sheegay marar badan oo ku soo celiyay oo yani uu nisbeeya sababihii keenay dagaalkii halka ka socday dadka maatada iyo shacabka lagu leeyahay in xoogagii SNM ay ka dagaalamayeen magaalooyinka taasina ay sababtay marka in duqeyntii iyo dimindaabiyadii iyo madaafiicdii daaraha iyo dadka la dhacay loo fulnay hawlka raas arrintaas maxaa ka jiray SNM shacabka ka dhex dagaalamayeen aduu markaas xal ciidana haydo wadagan state wad markii ay xaalad meesha u marisay arrinta binax Maxamed Cabdi Yuusuf inta badan ku soo celiyay oo iyo saraakiil kale oo General Morgan mar la wareysanay isaga naftiisu waxa uu sheegay in ay wixii dhacayba ay ka mas'uulahaayeen SNM taas gurilaayo kaynta joogay marka ayadaba ku jiray taas ma naqan karto wax lagu justify loo dhigi karo wixii meesha ka dhacay waxa laga rabaa dawladda hadayba dawladda aniga dawladdu ma arkaynayeen laakiin waxa laga rabaa inay
sidii doontoo kale negotiation ha noqoto dadka lala hadli karaa ha qaadato intay doonto laakiin wixii meesha ka dhacaya marna justify lagama dhigi karo cid ka dhigi kartaana ma jirto haddii la yidhaahdo haddaan kasoo qaadnaba la yidhaahdo maaragtay ururadii dagaalamaya masalan waxay shacabkay soo dhex gashay haddii la yidhaahdo xataa lafteeda justify ma naqon karto maxaa yeelay cudurdaar ma naqon karto sababtoo ah waxaa weeye dadkaas shacabka iyo SNM intaba xuquuqa ka maqan marka dulmiga meesha jiro in laga baabiyay ahayd waxaa weeye nidaamka dictatorka marka horeba dembiile wuxuu ka dhigaa cidduu dili lahaa inuu dembiile ka dhigo laakiin isaga dembigu gelayo ma arko 21 sano in xukun la fadhiyo marka hore yaa awood siiyey in anaga kaligay talinayo 21 sano xagee ku qoran tahay ninka diidana waa dilaya marka hore halkaa way qalad halkaa uu ka imaanaya marka meel kale in dadka loo tusiyo maaha ama sheeko kale laga dhigayo way xilligii aad intaanad markaa tegin amaanad dalka ka bixin ciidamada xoogoodu xagga buu joogaa baa la yidhaahdaa ciidanka ugu xooga badnaaba gobolladii waqooyi ama gobolkan waqooyi joogay dee waana sheegtayoo gaadiidka cirka ee ugu badan halkan buu yimi ciidamada cid ka maqneed ma male ciidamadii wixii Soomaali lahayd oo dhan halkaan la keenay ama ciidan ciidan har noqoto ama ciidan lug ha noqoto inta ku hartay waxay yeeday inta ilaalinaysay madaxtooyada iyo agagaarkeeda Muqdisho inta kale oo halkaan ay timid marka taasna waxay ahayd maaragtay nidaam waxshinimo kibir oo ka batay maxaa yeelay dadku waxay ahayd dad xataa wada hadal la sameyn waxyaabo badan la sameyn karay laakiin waxay keentay dictatorku markuu meesha ku daa wax dhammaan uu leeyahay moodaya marka waxaa aad iyo aad u mahadsan dadka qoriyaha qaatay iyo dadka caawinay oo gacanta siiyey iyo shucuubtii ku dhiiraday halka ku dhaawacay lagu dhammaystiray hadda Somaliland iyo Soomaaliya wada hadallo soo horta dalkuba isagoo dee Soomaaliya oo niman military haysta baad ka tagtay oo ay yaqaanaan maxaan ku raday kacanka barakaysan laakiin waxay soo noqotay sanadka 2008 iyo dalkiyo allow sahalo oo laakiin Jamhuuriyadda Soomaaliland baad timiyo iyadu madaxbanaaneeda la soo noqotay taariikhda kale ee Soomaalida marka dib u eegto كل من إذا مضى هاي وأبويها أو جنود واحد لا كسوار كبار حاجة تاريخها إلا إذا هذا الصومال لا يد الصومالية لبا مركها محبية ضد أو إسكتوا أيه هذي تقولين الصومال المدح بنادي دي حرية دي لا صنعوا ودي دي إلى الصومال أبغى شو أنت مسألة كستبا حلو قد لو هذا أنا qaabka u fiiriyo waxay tahay sidee maslaxadu ku jirtaa dadkan walaalaha oo kulligoodba ah ethniga Soomaali ah oo walaala ah maslaxadoodu si ku jirtaa waxay ku jirtaa in halkaa iyo halkaa la kala taagnaado oo maxay yiraahdaa xaggaba horu ka caleesu diido oo cadaalad ay jirto mase waxaa maslaxadu ku jirtaa in laba dowladood oo walaala ah oo iskaashada inaynu noqono marka halka maslaxadu ay ku jirto in la aadan ay aaminsanahay taasna waxa weeye xikmadda taasi ku jirtaa laakiin haddaan iraahdo halkaas ku dheganahay oo waxba ka imaanayno labada dhanba faa'iido ugu jira taas ma arka aniga siyaas ma arka haddii baan si kale ku weydiiyo haddii nin gobolka banaadir ka soo jeedata Axmed Xasan haddii aad maanta soo ka noqoto madaxweyne Soomaaliya madaxweyneeda lagu doorto maxaad ka yeelahay Soomaaliya anigu horta marka hore qof ra'yigayga aniga Axmed ahaan haddana madaxa la horta dictator ma ahayn oo sida hala yeelo ma dhihi karo waxaan ahaday qof mataqaanaa u bandhigayo maaragtay dadka kale laakiin hadda waxaan hubaa haddii afti la qaado xataa Soomaalida dadka shacabka haddii
haddii afti laga qaado oo la yidhaahdo ma hadda sidan u kala fasiraya aniga oo lahaa laba wadanoo walaalaha isjecel miyaan naqanaa mase dad kala taagan oo sidaa soddonka sano lagu jira ku jira waxaan waa aftida inay naqayso oo la leeyahay laba dowladood walaalaha noqon sidaasaan anigu qabaa sida dadka Soomaalidu ay qabaan waa yeelahay wada sheegto Soomaali maxaa u dana maanta wax ku soo hortay halka qodob ku soo hortay iyagu maslaxadooda inay noqdaan laba wadan oo walaalo ah haddii ay siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood aaminsan yihiin weli inuu qoriga shaqeynayo weli inuu yani cadaadis shaqeynayo weli inay cunaqabataynta caalamiga shaqeynayso maxaad kula talinaysaa waa nasiib darro laakiin dadka sidaa u hadlaya aniga waxaa hubaa dadkooda inaanay badnayn laakiin ay joogaan hadba boosishino ay joogaan marka dadka noocaasana maba ahaynba in boosishin ay tagaan waxay in la xisaabiyo oo markaas ka bacdi haddaan maxkamad la saaraynin in markaas aan loo dhoweyn inay boosishin ay ka hadlaan masiir dadkan kiisa inaanay marka horeba jooginba sidaasay waxaa jira marka waan maqlayaa ilafteeda rag odayaal oo mataqaanaa aniga iga sii weyn iga da'weyn oo si mataqaanaa aad u liidata u hadlaaya oo wixii dhacay markay ka hadlayaan iyo xataa ninkan hadda madaxweynaha sheeganaya oo villa Soomaaliya jooga oo ku hadlaya weli cadaadis hadalladiisa dhan bay yihiin inuu xoog iyo cadaadin kanaaladii waa ka soo xiray asagoo aad maqlay oo kanaaladii aan soo xiray haddii meel kanaaladii ka soo xiray waxay sheegaysaa inuu qof nin rabo inuu jujuubo dadka marka taasina wax maslaxada ma aha dadka Soomaalida waa ka tashanaya dawlad wanaagsan inay dhistaan oo maxaa yiraahdaa hadda waxa meesha hadda dawladda lagu sheegay inay bedelaan oo dawlad wanaagsan ay samaystaan oo maslaxadda dadka Soomaalida ha aadan meel kasoo degan yihiin Somaliland ayada sheeg Ethiopia dad Soomaalida degan intaba waa dad isku xiranay dadkaas maslaxadooda dad ka talinaya inay doortaan way adigu Axmed Haarka inta loo sareeyo wadamada ay baraysan Soomaalida laftooda qaarkood adifad ku jirto inta badan xal kala kulantay ima taariikh hore ku noqoto salaam inay qaab ku eedayaan inaad tahay wadankiisa khiyaan qaarna ku amaano yiraahdaan ku soo dhaweeyaan marka waran Soomaalida xal kala kulantay waa su'aal wanaagsan dadka arintaas cadaas dhacday aniga mataqaan mowqifkaas ka qaatay dadka badankiisu way amaanayeen oo maaragtay siday tahay u sheegayeen inaan dad walaalahay ka qayb galin dilkooda laakiin in yar oo waxaa jirtay markaas aniga aad ii jeedinaysay inaan khilaafay amarkii la siiyey oo hadda ah wax mataqaanaa markaas anahay xaqiiqo ah oo anigoo amarka uu yahay ama doctorinka aniga aan ciidanka u ahaa inuu ahay wad cadow shisheeye inaan la dagaalo oo aan ahayn dadka inaan burbuuriyo dalkii iyo dadkii marka taas waa la kulmo waan arkay laakiin waa dad qaldan oo aad u kooban cadaadiskaasi waa jiray yani iyo ina qaar dhinacaynta ku soo jeediyaan nacam Somaliland marka saddex bilood oo dambe soo joogtay saara qaldan ku joogtay wax badan baad aragtay oo dadku soo nool yihiin si horumarka la sameeyo waxa la wixii magaalooyin badan baad waxaad kula talinaysaa waxaad kala kulantay Somaliland yani marka laga yimaado qadiyada kale soo dhaweyntii madaxweynuhu deela uu guddoonsiye bildigeesta xaqii madaxdii badneed aad kulantay marka laga yimaado xagga siyaasadda hab socodka ama horumarka dhaqaale ee bulshada dhexdeeda maxaa kaaga baxay Somaliland waxa weeye wax badan ay haystaan bini'aadamka sidiisaba waxa ugu qiimo badan xorriyadda dadku inay xor yihiin xorriyaddii way hayaan waxaa ku xigay nabadgelyada way haystaan dimuqraadiyaddina way haystaan oo hadda in la sii xoojiyo u baahnoo doorashooyinkii golaha maxaa yidhahdaa golaha wakiilada waxay oo dhan dhammaystirkaas ayay ku jiraan oo haddaba waata diiwaangelintu ay socoto marka aad iyo aad u bogaadinayaa inay ilaashadaan xorriyaddaas ay haystaan
inay midoobaan oo ay mid ahaadaan oo laga faa'iidaysan inaan laga faa'iidaysan oo ay mid ahaadaan ayaan kula talinaya taas ayaana ugu muhiimsan ta lagu ilaalinayo xorriyadda waxay ku ilaalin karaan inay mid ahaadaan marka inaan la dhex gelin oo ay iska ilaaliyaan in la dhex galo oo maxaa yidhahdaa laga faa'iidaysto in khilaaf laga dhex abuuro waxa alla wixii khilaaf oo dhexdooda oo masaa'il la isku khilaafana inay fadhi ku xalistaan oo aanay marna gaarin inay dad kale ay isu kaashadaan ama meelo kale ay wax ka doontaan marka intaasaan ku bogaadinayaa shacabkana sidoo kale haddii ay wax dhiman yihiin inay samraan inta maxaan idhaahdaa mar haddiiba lahaayo wixii aasaaska u ahaa nolosha oo ah xorriyad iyo nabadgelyo anigu ma haysan xorriyadda hadda maanta anaa dhigno oo halkaa ka jirta waxaa weeye riyay ugu ahayd waqtiga aniga aan joognay marka waxaa la rabaa marka waddadaas wanaagsan oo somaliland marayso oo in aad mataqaana loogu dadaalo inaan laga weecan oo si wanaagsan loo sii hagaajiyo horumarkuna shaki kuma jiro inuu ammaanayo waxaan tegey boorka berberan tegey boorka aad iyo aada loo ballaarinaya shaqo wanaagsanaa ka socota sida airboortkana waan tegey iyadana dhismadii iyo cusboonaysiintii waa dhammaato gebagebo waaye marka dhismuhu maalin iyo habeen kuma yimaadaan laakiin maalin walba in haddii la qabto waxa dhan maaragtay marka dambe waxaa loo tegayaa horumar wanaagsan marka aad iyo aadan aan mataqaana u rajaynayaa in horumarkaas uu sii socdo oo meel wanaagsan ay gaaraan waqtiyada soo socda hadii la yidhaahdo waa tahay daawadayaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi waraysiga ayaan la yeelanay korneyl axmed maxamed xasan axmed dheere oo ka tirsanaa dabcan ciidankii xoogga dalka jamhuuriyaddii soomaali in la isku odhan jiray ahaana dowliye sare oo ka tirsanaa ciidamadii cirka ee dalkaasi oo isagu muddooyinkii u dambeeyey ama soddonkii sano u dambeeyey ku noolaa waddanka luxemburg sida aynu horba taariikhda usoo sheekeynay laakiin dhowaan usoo boqday somaliland oon kula kulnay magaalada hargeysa axmed cami aad iyo aad baad mahadsan tahay mar kale iyo mar saddexaad waanu ku mahadcelinaa allaha garab galo